madaxweyne Farmaajo iyo Uhuru Kenyatta oo ka wada hadlay xalinta xiisada u dhaxaysa labada wadan. Labada madaxweyne ee Soomaaliya iyo Kenya ayaa la sheegay inay khadka taleefanka ku wada hadleen saacado kadib markii uu madaxweynaha Kenya ku eedeeyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed inay ku soo xadgudbeen madax-bannaanida dhuleed ee dalkiisa. qoraal ka soo baxay madaxtooyada fila Soomaaliya ayaa lagu xaqiijiyay inay labada madaxweyne xalay yeesheen xiriir dhanka taleefanka ah kana wada hadleen si loo qaboojin lahaa xiisada taagan. Labada madaxweyne waxaa la sheegay inay isku afkarteen in guddiyo kala socda labada wadan ay sida u dhaqsiyaha badan u yeeshaan kulan farsamo si loo xoojin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed iyo ganacsi ee labada dad iyo dalka wada dhaxeeya. dhinaca kale dowladda Kenya weli kama aysan hadlin wada hadalka khadka taleefanka ah ee labada madaxweyne xalay dhex maray. si kastaba ahaatee dowladaha Soomaaliya iyo Kenya waxaa ka dhaxeeya khilaaf diblomaasiyadeed oo xoogiisa ku aada faragelinta iyo dowladda Kenya ku hayso arrimaha gudaha ee Soomaaliya iyo isbahaysiga dhow ee la leedahay maamulada iyo siyaasiyiinta mucaaradka ku ah dowladda ugu horeeya madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo in Kenya kaalin ka qaadatay dib u doorashadiisii ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ku gacan